dhacdo naxdin leh oo tiiraanyo leh ayaa ku habsatay qoyska ilmo Subcis. Juweeriye Subcis sideen ognahay waa tii lagu dilay Jigjiga ee markaasi ninka axmaarka ah ee ciidanka federaal ka tirsanay uu ku toogtay airportka Jigjiga halkaasi oo sidoo kale uu ku toogtay walaasheed Ayaan. haddaba Juweeriye dhimatay laakiinse walaasheed waxaa la sheegay 2 jeer in lugta laga jaray kadibna haddana loola cararay dhinaca iyo Mareykanka oo xaaladda lagula tacaalayo. dhacdadaasi naxdinta leh ayaa haddaba hooyadood oo shoog ka qaaday dhibaatadaasi moogtay iyo tiiraanyada ku habsatay labada gabdhood ee walaalaha. hooyadood ayaa la sheegay markaa shoogii ay ka qaaday in iyaduna maanta ay u geeriyootay oo ay raacday. waxaana sida oo kale la sheegayaa aabihii isla qoyskaasi Subcis ayaa isagana xaaladiisa laga dayrinayaa oo la sheegay in xaalad adag uu ku jiro. arrintan ayaa haddaba noqotay dhacdo naxdin iyo tiiraanyo leh oo hadda la isla dhex marayo dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida oo markaasi qabsatay baraha bulshada iyo meelaha ay dadku ku kulmaan iyadoo oo markaa qoyskaasi dhacdada ku habsatay markaa aad looga argagaxay. haddaba ninkii dilay Juweeriye ee ka tirsanaa ciidanka federaalka ayaa la sheegay in maxkamad uga socotay Jigjiga markii ugu dambeysay. wararkii ugu dambeeyay ay soo gaadhay ayaa waxa ay sheegayaan sida oo kale warar la isla dhex maraya in ninkaasi lagaba saaray Jigjiga oo dhinaca Addis Ababa la geeyay baa la yidhi oo aan weli hadda wax xukun ku dhacin. inkasta oo dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu ballan ku qaaday in ninkaasi maxkamadda lagu fulin doono dil toogasho oo markaasi ay doonayaan ninka in tallaabo adag laga qaado oo la dilo oo la raaciyo ayaa Juweeriye Subcis dilkaasi bahalnimada u geystay ee bareerka ahayd oo markaasi uu aad uga gelgishay Mustafa Cagjar. haddana ilaa iyo hadda ayay dadka mucaaridka ay waxay sheegayaan inaan waxba ka soo naasacadayn oo aan tallaabo laga qaadin baa la yidhi. qaarkoodna waxay isla dhex marayaan oo ay leeyihiinba waaba lagu qaadayba gacantii moogtahay dhinaca deegaanka federaal ahaanba moogtahay loo maxkamadeynayaa. qaarkood baaba kasii dardaar warinayo oo le markaa waxaa laga yaabaa in markaa layskaba sii daayo aakhirka bay qaarna ku doodayaan. aduu si kasta ha ahaatee qoyska tiiraanyadaasi ku dhacday ayaa waxaa la sheegaya hadda aabahana laga cabsi qabo isna inuu raaco oo markaasi uu naxdin darteed u dhinto. waxaana noqotay arrintani mid markaa murugo weyn iyo tiiraanyo ku keentay dhinaca deegaanka Soomaalida iyo weliba bar ku taala dhinaca maamulka Mustafa Cagjar oo lagu dhaliilayo leeyahay ma dadajinayaan maxkamadaynta ninkaasi markaasi sida kibirka ah bay yiraahdeen ugu toogtay gabadha xildhibaanada ahayd ee mas'uulka ahayd ee Juweeriye ku dhex dilay airportka Jigjiga. taasi oo ilaa iyo hadda la sheegayo markaa in aan wax tallaabo cad oo muuqata la qaadin ee maxkamadayntiisii muhmal ay ku jiraan bay qaar ku doodayaan bay leeyihiin maba jooga ninkan Jigjiga. si kasta ha ahaatee dhacdadan ayaa waxaan aad uga moogtahay tacsiyeynaa geerida naxdinta leh hooyadii ku timid ilmo Subcis. aabaha dhalayna waxaan u baryaynaa Ilaahay markaa isagana inuu caafimaad siiyo. Juweeriyena Allah u naxariisto ayaana markaasi 2 jeer baa lugta laga jaray. Ilaahay oo bogadhayo oo ducaynayna qoyskaasi loo duceeyo. waagaag dhinaca kale waxaa Mareykanku soo saaray hanjabaad loo diray maamulka axmaarada iyo ciidanka Eritrea in haddii sida ugu dhaqsaha badan la ciidamadoodu kala bixi waayaan deegaanada Tigreega iyo gobolada Tigreega in markaasi Mareykanku tallaabo adag ka qaadi doono haddii aanay fulinin heshiiskii Pretoria oo aanay ciidankooda degdeg uga saarin buu yidhi gudaha Tigreega. Mareykanka ayaa ku hanjabaya inuu tallaabo adag qaadayo taas oo ay ku jirto cunaqabatayn uu saari doono maamulka axmaarada iyo Eritrea iyo tallaabooyin dheeri ah haddii loo baahdo bay yidhaahdeen. haddaba maamulka axmaarada iyo Eritrea ayaa labadaba la sheegayaa inay diidan yihiin heshiiska xukuumadda Itoobiya iyo markaasi TPLF iminkana ay ku hawlan yihiin mijaxaabinta iyo abaabulka dagaalo xooggan oo markaasi sii laba jibaarma. haddaba dhaqdhaqaaqyadii shalay toole ay baahinayeen dhinaca axmaarada ee lahaa mogta ciidamo badan oo kolonyooyin maleeshiyaadka faano ayaa laga soo saaray galbeedka Tigreega iyo dhulkaasi walqaayad iyo deegaanada Tigreega. taasi ayaa la sheegay in ay ahayd uun mid Mareykanka indhihiisa moogta la iskaga jeedinayay baa la yidhi oo markaa hadda laakiinse ay sii laba jibaareen gaboofalyada ay geysanayaan ciidamada axmaarada iyo kuwa Eritrea iyaga oo markaa ay tana tahay baa la yidhi inay hoostana gumaad ka wadaan dushana ay markaasi iska dhigayaan moogta dad fiican oo moogta ka baxaya gobolkii Tigreega.
haddaba eedeymahaasi waxaa u jeedinaya warbaahinta taageertay activistayaasha Tigreega ayaa soo tabinaya dhinaca kale axmaarada iyo Eritreankuna waxay leeyihiin TPLF baa teerooyin qodanayso oo markaa abaabul dagaal oo xooggan bay ku jirta isku tuurtuur baa socda haddaba heshiiskii lagu heshiiyey markaasi in ciidanka aan ahayn ciidanka Itoobiya ee federaalka oo kaliya ee ENDF ayaa loo ogol yahay baa layidhi inay joogaan Tigreega ka bax ciidamada kale ee jaanibka ah iyo kuwa kale ee aan ahayn markaasi ciidamada federaalku ee maleeshiyaadka axmaarada loo jeedaayay waa inay ka baxaan baa heshiiskii wali hadda muhiir gelin baa la leeyahay dhinaca kale hubka dhigista TPLF-na ilaa iyo hadda wax ka hirgashay ma jirta baa la leeyahay haddaba sidee la isku waafajinayaa in ciidamadan markaasi Eritrea iyo axmaarada ka saaristooda iyo TPLF hubka dhigisteeda يعني كيبا هرينيا ayaa markaasi qodobkaas ayaa adag waxaan ku doodayaan markaasi dhinaca xukuumadda Itoobiya oo ay leeyihiin oo iskarab soconaysa hawshu dhinaca hubka dhigis ba ka soconaysa dhinaca bixis taasi laftarkeeda waxay u baahan tahay xoog badan in la wadaago markaasi la wada shaqeeyo haddana xaggii laga wada shaqeyn lahaa waxa loo arkaysaa markaa in eedo la isku gudbinayo oo mogta eedo hawada la isku marinayo wax wada shaqeynayna ma jirto kana tuuganimo iyo baleeqaysi bay wadaan bal ugu eedanaya dhinaca axmaaradii Eritrea xulafadii ciidanka Itoobiya dhinacan kale TPLF runta leeyahay abaabul dagaal bay wadaan eedaaba hawada isku marayaba heshiiskani sidoo ku dhaqan gali lahaa ilaa iyo hadda caqabadii ugu weyn ayaa taagan Mareykankuna ilaa iyo hadda waxa uu moogtay wada 24 saacadood xiriir toos ah iyo cadaadis xooggan oo ku haya dhinaca xukuumadda Itoobiya iyo waliba dhexdhexaadiyay ee markaasi ergadii ahayd Obasanjo oo ah markaasi madaxweynaha hore Nigeria iyo madaxweynaha hore Kenya oo isaga laftarkiisu Kenyatta cadaadiska ugu xoogganaa uu hadda saaran yahay 24 saacadood waxa soo garaacaya Blinken xoogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka isagoo markaa tallaabo doonaya in heshiiska loo hirgeliyo wax ka hirgalana ilaa iyo hadda lama arkayo oo aan ahayn xabadda la aamusiyo xabadii la aamusiyay laakiin gujaynta gudaha ayaa ciidan ka badan baa la leeyahay waxaana la sheegayaa marka heshiiskani in laga yaabo inuu burburaba waayo hubka dhigista TPLF xukuumadda dalbanaysa ma socoto dhinacan kale axmaaradii iyo moogtahay ciidankii Eritrea ciidamadoodiina waa kuwa Tigreega jooga ee magaalooyinkii leega bofaliye ka wadaan marka ilaa ay hadda muujinaya walaac weyn waagaag dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay waqooyiga Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigreega ayaa waxaa lagu eedeynayaa in kooxda TPLF ay hadda wadaan abaabul dagaal oo xooggan oo ay qodanayaan dhufaysiyo cusub iyo ateerooyin kaasi oo la sheegay in ay ka qodanayaan waqooyiga magaalada Maqale sida oo kale koonfurta iyo markaa dhinaca bari ee markaasi Maqale waxaan hadda la sheegay duleedka magaalooyinka Machiu iyo Mehoni in ay markaasi halkaasi ka wadaan sida oo kale ciidan badan oo ku soo gurayaan iyo dhufaysiyo halkaasi ka qodanayaan magaalooyinka kale ee hadda la sheegay in abaabul dagaal ay ka wado TPLF ayaa waxay tahay agagaarka magaalada Idaaga Hamasa iyo Adeeqrat waxaanay wararku sheegayaan hadda inay TPLF isku diyaarinayso dagaalkii ugu xoogganaa oo hadda ay bilaabayso haddaba wararkan ayaa waxaa soo tabinaya eedahan hadda loo jeedinaya TPLF warbaahinta axmaarada iyo warbaahinta Eritrea dhinaca kale warbaahinta dawladda deegaanka Tigreega iyo TPLF ayaa iyaguna waxay eedeymo xooggan u jeedinayaan in ciidanka Eritrea iyo kuwa axmaarada iyo maleeshiyaadka Faano inay wadaan biliqo iyo dhac iyo boob iyo dil baahsan oo ay ku hayaan beeladeen shicibka Tigreega waxaana sheegeen markaasi in gaboodfalyadaasi ay ka wadaan magaalooyinka Shire Aqsam iyo Arwa TV-ga u janjeera dhinaca dawladda deegaanka Tigreega ee DW ayaa baahiyay muuqaalo uu ku eedeynayo inay ciidanka axmaarada iyo Eritrea ay gaboodfalyo ku hayaan buu yiri shicibka Tigreega